Allah u naxariistay waxa maanta meydkeeda laga helay gurigooda gabadh yar oo 13 jira. gabadhani ayaa maalmihii u dambeeyay meydkeeda iyo sidoo kale ruuxdeeda laga baadi goobiyay gudaha magaalada Muqdisho iyadoo baabuur aad u tiro badan mikrafoon la saaray isla markaana waalidiinteedu ay aad u raadinayeen. hase yeeshee gabadhani ayaa maanta meydkeeda laga dhaxlay hoygooda iyadoo ku jirta dusuuda waaweyn ee lagu kariyo alla baryada. haddaba Allah u naxariistay gabadhani gabadhan yar ayaa meydkeeda laga dhaxlay dusuudaasi. sidoo kale ciidamada booliiska iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Goday ayaa soo gaaray xaafadaasi ay mucjisadu ka dhacday. arintani ayaa noqotay mid ugu kuwa gabi ahaanba deegaanada Soomaalidu joogta iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay maalin waliba ka dhacdo qisooyin kala duwan. hase yeeshee waxay ciidamadu markiiba xabsiga u taxaabeen 7 qof oo dambiga gabadhaasi loo haystay oo ay ku jiraan labadeeda waalid. hase yeeshee gabadhani muddada la raadinayay ayaa waxa makaagii fajac ku noqday dadka deegaankaasi markii xaafadooda dhexdeeda laga helay iyadoo dugsi ku jirta. haddaba dadka ayaa isweydiinayay su'aalo kala duwan. sidoo kale bulshadu waxay noqdeen kuwa gabi ahaanba ku mashquula xaafadda reerka iyadoo inta badan ay bulshadu u maleynaysay reerku inay noqdeen dad qalatooyin. hase yeeshee ciidamada ayaa xidhay waalidiinta gabadhaasi iyo sidoo kale ehelada xaafadda kula noolaa gabadha yar. haddaba waxay bulshadu u dhagtaagaysaa waxay ciidamadu ka soo saari doonaan arrinkan iyo sidoo kale maxkamadda oo la rajeynayay in maalmaha soo socda ay xukumi doonto waalidiinta gabadhaasi iyo sidoo kale ehelada gabadhani oo loo haysto dambigeeda. hase yeeshee waxay bulshadu inta badan ay dhagta u taagaysaa gabadhani waalidiinteeda in arrinkan uu ku cadaan doono iyo inuu ka duwi doono. hase yeeshee waxay dadka qaar aaminsan yihiin in waalidiin wax dhalay aanay marnaba ka suurtoobin in ubadkooda ay googooyaan ama si ay dusuud noocaasi oo kala u kariyaan. hase yeeshee haddana arrinkani waxa uu noqday mid ugub ku ah dhagaha dad badan oo arrinkani la yaabay. si kastaba ha noqotee hal mar oo kaliya ayaa gabadhani sawirkeeda iyo sidoo kale iyadoo dugsi la sido la soo dhex dhigay baraha bulshada iyadoona ama kaag iyo fajax la yaab leh ku noqotay inta badan Soomaalida oo aan arrimaha noocan iyo kale ay dhexdooda aanay ka dhicin. hase yeeshee arrinkani waxa uu noqonayaa mid isaguna la yaabkiisa wata. haddaba bulshada Soomaaliyeed ayaa tan iyo intii ay social media isticmaalkeeda baratay waxay ka dhacay qisooyin la yaab leh oo aad u tiro badan. haddii aad maalintii gasho barta Facebook oo ay Soomaalidu aad u isticmaasho waxaad arkaysaa kumanaan qisooyin oo kala duwan oo isla maanta dhacay isla markaana ka dhacay geeyada kala duwan ee Soomaalidu ay degto. haddaba daawadayaal waxaad nala daawataan gudoomiyaha degmada Goday oo arrinkaasi ka hadlaya isla markaana sheegay in waalidiinta gabadhani la xidhay haddana ay ku jiraan mid ka mid ah xabsiyada ku yaala degmada Goday. hase yeeshee waxay sugayaa inuu arrinkani cid uu ku cadaado sidoo kale iyadoo loo badinayo in dadka ehelka la ama qaraabada la dhawaa xaafadda la joogta gabadhani yar in iyaguna arrinkaasi ay ku lug lahaayeen walow aanay hadda kala cadayn in waalidiintu ay kiiskani galeen iyo sidoo kale in cidda kale xaafadda kula nooleed gabadha ay arrinkani gashay. haddaba si kastaba ha noqotee waxay bulshada Soomaaliyeed sugi doontaa arrinkani dhanka uu dhaco annagoo haddii aanu nahay ansixinta wararka isku duuban u heelan isla markaana mar walba garabkiina taagan sidii aanu idinka qabtiri lahayn wararka baraha bulshada ka dhacay idaan idinku wax faahfaahin ka haysan. haddaba waxa jiray bara kale oo bulshadu ay isticmaasho oo iyagana la soo dhigayo arrimo kale oo been abuur ah. hase yeeshee halkani waa hoyga xaqiiqda. haddaba daawadayaal haddii aad ku cusubtihiin kanaalka ansixinta wararka ku soo biir oo ka mid noqo kumanaanka kun ee qof ee ku xidhan ee sida joogtada u hela wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida dacaladeeda iyo gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda oo hadda noqotay wada war iyo sidoo kale wada dhacdooyin. hase yeeshee daawadayaal waxaan anagu mar walba u heelanahay sidii aan idinka farxin lahayn sidoo kalena aan idin soo gudbin lahayn warar iyo dhacdooyin dhammaystiran. haddaba daawadayaal subscribe saara kanaalka sidoo kale la garaya muuqaalka si uu gaaro kumanaan kun oo qof. aadayaan kugu mahad celinaynaa daawade sidoo kale comment nadiif noogu reeb barta farcelinta. aadayaan kugu mahad celinaynaa waxaad nala daawatan gudoomiyaha degmada Dharkeelle oo arrinkaasi ka hadlay iyo sidoo kale waalidiinta gabadhani oo mar dhow aan ka soo gudbin doono muuqaalo kala duwan annaga ku booqan doona xabsiyada ay ku xidhan yihiin. aad ma santiin daawadayaal haddii aad soo gaadheen bartani maanta mucjiso meeshan ku aragnay. 3 maalin ugu dambeysay waxa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta ah masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed baafin ku sameeynayay. runtii gabadhiya waxa lagu arkay saaki digsi weyn oo dugsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kala kor saaran yahay joodaryaal iyo alaab ka koreyso
ciidda subaxdii hore waxay dhaayeen doolimaa guriga ku dhintay wax sacamal ah laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo go'go'day oo meesha ku jirto waxyaabaha mucjisada waxaa ka mid ah inay xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii CID-da imaaday ma gowracneen gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku dhacay loo maleynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabbihi ka maqnaay guriga cilla ahay laba wiil oo qaraabal ahna ay joogtay oo qaangaara ah marka iskuulka markay ka imaaday in dhib loo geystay wasa camal laga shakisan yahay kadibna uu dil asas loogu sameeyo xariga laakiin ku cijisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii aab lagu xirayba marka waxaa la yaab leh familka qolkan ma isticmaalayeen mase wuu iska xirnaay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kufsiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyay ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska dhibka gaaray ma ayaga kaligooda degan mise waa la degan qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabe ah hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiilal qaraabe ah abti ma u yahay masadeer u yahay wiilal saddex mala joogeen wiil kamid ah iskuul jira wiil kamid ah nala jooga oo xogaa dhagaha ka culus dhamaantood saldhigan geed doonaa meedka CID-da la geenaa waxa la baaraa gabadhan qaabka u dhimatay